dad badan horta aqoonis weyn ii lahayn oo social media bis iga arkay axmed waa salaamantahay walaalkee boqorkii la dhasho aadan kuu salaamaya horta Soomaali maxamed waxa idii leeyahay horta maqal ma jira malee maqlaa intaan hadlin ka hor malee maqal ma jira hadoo maqal oo jiro maxaa leedaha ha ii soo qoro hadoo maqal jiro maqal haduu jiro ha ii soo qoro waxaan rabaa wax badan inaad dadka halkan aan kaga sheego yani dadkii asxaabteedu way badan tahay ma sha Allah inta maxaafidkayga ii jeclaa badan oo ii damqada 4 saac oo markastaba igu xiran oo i taageersan ma sha Allah aad u mahadsantihiin marka waxaan rabaa inaan ka hadlo fiidiyoyaasha aan soo dhigay oo anigoo ilmeynaya horta ma jiro qof dumar ah hadana gabar ah oo hadana hooyo ah oo social media caanka ah oo hada magac ka leh cadow badan oo leh taageero badan ani maanta waxaan leeyahay taageero badan aan leeyahay inta cadowga igu ah oo iga soo horjeedo waxaa ka badan inta i taageersan oo garabkayga istaagsan ma sha Allah aad u jeclahay dadkayga inta mucaaradka xataa waxaan leeyahay iska noolaada kale maxay ahayd maalin waxa laga yaabaa in uu xaqiiqda ogaado oo asiga noqdo qof damiir lah horta ani dhibkaan waxa u maraaya maanta hadda aan la marayo maxaa la dhahaa xaaladda aan taaganahay waxa igu dhaliyay in aan social media anoo videogeyga anoo ooynaayo maanta og ana cadow badan igu farxaayo oo ku qoslaayo anigoo ooynaayo farxad ay u tahay marka ooynaayo farxad u tahay oo ogahay in ay jiraan oo rag iyo dumar ahba ogahay horta mida idii sheegaa qof aan mucaarad lahayn ma jiro adduunka ma jira qof aan mucaarad lahayn ma jiro asxaabihii yaaba mucaarad lahaay nabigeena calayhi salaatu salaam maxay la dhibaateen jiray maxay ambiyaashi qof aan maxay ahayd aan cadow lahayn adduunka korkiisa ma jiro ma fahanteen ani waa ogahay cadow badan inaan leeyahay waan ogahay dad badan inay qalbiyada hureen maxay ahayd ka ilmeeyeen aniga markaa ilmeenayo videoga soo dhigay waxaan ogahay in dad badan ayagana ila ilmeeyeen dad badan inay ila ilmeeyeen caloosha hurtay laga yaabo xataa qaar kamid ah dadkayga asxaabteeda aniga i jecel i taageersan laga yaabo in cunto iyo biyo ka degan la yihiin qaarkood hadda jecel ii qabaan dartooda iyo aniga sida anigu ilmeeyay ilinteeda ee dhigtay waa buuxaan waree maxaa dhacay maxaa ilig maa meesha waxaysantahay dhaa taaban laa maahan ortay aniga hadda life ku jiro oo macaani ordo marka waxaa jira dad badan oo hadda maanta ani madaxayga calool xumo badan u qaba dadna way quslooyaano mac wallaahi alcadiim dad badan waxay ugu soo qoray mac sukaray kugu tahay anigoo ilmeynay waxa markaa soo qoray aan soo dhigay maxay storyga dad badan ay dhahay macay kugu tahay sheekada ilminimadaas oo xasuusana mac sokor qofka markuu dhacal dhahay jiray macay kugu tahay mac sokor soo xasuustay dad waaweyn mac sokor isdhahay aan arkay hadda marka Soomaaliye dad waaweyn oo mac sokor isdhahayo aan arkay oo ay kugu fiican tahay mac sokor yaa mac sokor walaalkay waa ogahay axmed cabdiraxmaan aadan ogahay buu ilaahay ka xafido dhamaan inta ka arkay yani oo igala xumaatay fiidiyoyaasha aan soo geliyay idaheen xataa dad badan igu xanaaqay idahay cadowgaaga maxaa isugu jibinay cadowgaaga maxaa ugu farxad gelinay ilaa hadda commentiyaal dad badan ka soo bixin oo aan wali maan ka jawaabin laakiin dadka hadda commentiyaasha soo wada bixiyay aniga maxaa lahaa waxaan jeclaystay in live u soo galo asxaabteeda aan halkan
ugu sheego maxaa lahaa ugu mahad celiyo horta dhammaan inta ka damqatay commentiyada wanaagsan kasoo bixisay kolley inta kastaba inta aan arkay commenti oo aan videoyaasheeda laga soo bixiyay ma arkin commenti oo aad yacni wax xun qof ii soo qoray ma arkin macaaradkay kolley ma arkin laakiin aniga waxaan soo saaray mandhayga waxaan soo saartay dad badana sawirada aan soo saaray aniga oo ilmeynayay iyo wax dhan dadaa waxaa ii soo qoray macso koray kuugu tahay mac sokor marka adduunyada wax kasta waa la arkaa marka waxaan rabaa waxba u arki inuu dhahay walaalkay kuwa mac ku dhahaayo marka Soomaali maxamedey waxaan idin sheegayaa horta inta aqoon ii leeyahay aniga aqoon waa ii leedahay adduunka waxaan la arkaynin malaha waa tilkal ayaam yoom lag yoom caleeg waxaan la arkaynin adduunka korkiisa malahan maalintii aniga waxaan aan soo maray nolosheeda waxaan soo maray inay naaga xaafadda ila degan igu mashquulaan ee i dhahaan naagtaan intee wax ka soo galaan saa u qurux badan ilmaheeda sina u qurux badan yihiin noloshan ku nool yaa intee wax ka soo galaan waxaan ka qurux badnaay naaga oo bishi meel u saaran misheer qaadanayo naaga niman qabaan oo aabayaal lahoo adeeryaal lahoo garab la taagan walaal lahoo yacni maanta waxba ay ka qasnayna ani aan ka sareeyay alxamdulilah anigaa laygu mashquuli jiray lee dhihi jiray farxiyo ani markaa xaafad aan deganahay yacni naagaha intaa derbi la fadhiisto yacni lama sheekaysto derbi inaa la fadhiisto haysaama intaa dhacdo ma kala gurwar maxaa yeelay ani waxaan ahay mas-uuliyad weyn aan qaaday anigoo mas-uuliyad aan qaadi karin oo yar aan mas-uuliyad lee dhiibay ilaa haddana mas-uuliyadda ay saaran ma fahanteen marka yacni marka aad war intaa geshid yah oo aad sheeko geshid oo naagaha la fariisa naagaha waxay dhihi jireen waa isla weyntahay farxiyo waa isla weyntahay marka dambe maalina waxaan ku qabtay ayagoo badan waxaan dhaha fiir wax ma idin sheegaa ani farxiyo cabdimuude waxaan ahay odi waxaan ahay habar abko wax dhana isku ahay aniga waxa isku intaasoo family waxaan u hayane 5 qof aniga 6 adigu ay aan mas'uulka ahay ma fahanti marka waxaa aniga igu dhaliyay inaan video iska soo duubo waryaa igu badinin aniga xaalad adag aan ku jira darteeda aniga video u soo duubay wixii ku farxay horta ayaga u taalaa laakiin aniga farxi ahaan ma u joojinaayo dant maxay ahayd ani daruufta i hayso ka weyn maanta ma taagni maalinta naagaha aan la ficilta hadda alxamdulilah xataa أنا فعيق أمحمي فعيق أمحمي جد كسدام مرة ناكتان حالة سكو جرت الاسم هاي لكن وحنا هاي قف إيمان له أو سكو كلسون صور بدن الميج أنا سكر صدي أنا أبي هاي وهاي ولا يقول ضيعي ما فهمتين أنا هاي أبو هاي أنا سكر صدي أنا هيستي مركا ما أنت أرنت وإيجا تنبضيسي markii hore been midila sheegaayo waxaan ahay qof meesha rabto marayso oo meesha rabto arin ka soo fuushanayso oo meesha rabto asxaabteed u joogtaan ee dan ka soo gasho lugteeda ku tageysay gabi ahaanba waxaan joojiyay ina maxaa la dhahaa waa isdareemi kartiin waxba hadda inaa idin sii faahfaahiyo marabo laakiin danta aniga maanta aniga social media inta soo galay aan ugu ooyay waxay tahay duruufo badan inay qabtay xaalad waxaan soo maray aad u adag ana hadda qofka maxaan arkay ina aniga gurigeyga ilmaheyga aan kaam saf ugu galo aan cunto kaam laga kariyo hadda adii dad badan oo heer joohar ay way yaqaanaan dada ii ogeena jiro waxaas laakiin hadda maanta waa sheegaya يعني دلقاتك أنا المها سبر كان كسو كري الميج أنا كسو كري بهد أنت إذا شجع وحوايا أنا حالة أذك أنا كجرا أنا أفر عنق أي شكت أفرت عنق أفر أضياك الحمد لله هرت وح كست بقدرة الله وإلهي حقي سكي ماذا إلى حق سكي معنا صح وصحنتها ولالكي نور حاجي أحمد هذا ومحسنتها ولالكي وصح إن الله شجع وقصب هذا إدي شجع يا مرك قف كستأسجو أك
hadda u sheegaya aniga horta khaasatan waxaan idiga sheegayaa taariikhdeyda kow kasoo bilaabatay aniga waxaan ku dhashay jowhar aan kusoo wax dhalay aan kusoo barbaaray waxaan ahay gabar reer jowhar ah jowhar caanka ah ku dhalatay waxna kusoo dhashay alxamdulilah ani nolosheyda waxaa isoo koriyey eedaday aabba la dhalatay oo wiilaa isoo korsatay waxaa qabay aabbahay sheekh cali macalin yuusuf allahu naxariisto sheekh cali dhagweyne dadka yaqaana heer jowhar aabbahay sheekh cali macalin iyo hooyaday aamino waa labadii isoo koriyey weligay dhibaato horta iyo rafaad iyo wax maan arkin adduunyada tilkale ayaa waayo waxaan kusoo koray guri keligay aniga aan ka ahay amiir ilaaha amiir ahe oo dallacan ka ahay oo si kokoolin lee kokoolin jiray waxaa dhacday aniga aabbihii isoo i dhalay woo jooga cabdiraadiyo oo la dhahaa cabdi muddo dhuwow heer jowhar way yaqaanaan hooyaday i dhashay way ii nooshaa hadda allah ii dhaafa maryan cabdi cilmiyaa la dhahaa waa hooyaday aniga i dhashay way ii joogtaa waa hooyo iska waayeel ah jowharay ku nooshahay okay anigoo yara horta nin guursaday alxamdulilah wax kasta waa calaf meeshaa maraysidne cid kuu maraysa malahan waxaan guursaday maxaa la dhahaa markaa guursaday waxaan dhalay gabadheeda curudda ah aabaheed waa kala tagnay iyadoo sanad iyo 7 bil jirtaa baxay sacuudigan tagay 5 bil camal soo joogaa leesoo tarxiilay waa imaaday waan guursaday adig kolley inta aniga waxba midiisa sheegaa waa guurkii wuxuu sabab ama aniga ahaada ama qof kale ha imaado kulli waa soo burburaa ilmeyga waa kala aabo markastana anigoo walaaca ilmeyga aan kala tagna aabayaashood aniga dhalo aniga soo korsado aniga le maxay ahayd garab taagan okay marka alxamdulilah ilmeyga ana hooy aabuu ah wax kale oo idii faahfaahina ma jirto marka waxaa idii sheegayaa aniga jowhar xaaladda aan ku sugnaay marka magaalada markaa maraayo farxiyo cabdiraadiyo dadka waa ka tilmaamnay alxamdulilah inta i taqaana way i taqaanaa jowhar farxiyo cabdiraadiyo dadka waa ka tilmaamnay alxamdulilah naag ficeyga uma xumeen inaan ka sareeyo maahine markaa jidka maraayo saasay tahay xaaladii hadda dad badan heer jowhar aan ogeyn nolosha aan soo maray dad badan oo heer jowhar aan ogeyn nolosha aan soo maray nolosheeda marka bilaaw ilaa dhammaad ayadoo ilin lahayn baa idiin sheegayaa waa ogahay in ilinteeda idii dhibeyso ani aabbahay isoo kori waa dhintay hooyada isoo koriso way dhimatay aabbihii i dhal woo dhintay waxaa ii joogta hal hooyo ilaahay ii xafida oo waayeel iya gurigeygeena ku nooshahay okay ani jowhar markaan ku noolaay wiil walaal ahaa garab isiin jiray in badan garab isoo siiyey kheyr allaha siiye magaciisana maraba inta inaan ka sheego oo ilmahayga dhinac igala soo koriyey haddana daruufadii waa iska adkeed oo waad dareemi kartaa waxaan arkay aan aniga kusoo noolaay aniga aan ku noolaay jowhar dad badan aa yaqaano maxamed cabdilo kaamkiisa dad badan waxaa laga yaabaa inay ay ogyihiin wiilal badanaa og harto sida gabdhaha badanaa waa hariifayaal waa iska qarin jiray been ma idiin sheegay gabar waa hariifo maanta haddaa isku dhacdiin beri way kuga caynaysaa shalay kaamkaasaa saf aa lagu leeyahay aniga ma u sheegi jirin ilaa hadda qof ilo og oo naag oo heer jowhar oo gabar ah ma jirto laakiin waxaa ila og dhalinyaro badan oo aan garab i yahay mar kastaba oo wiilal ah oo meeshaan kaamka badarka lagu karanaa heer maxamed cabdille dadka heer joorka yaqaana qaarkood dadka aqoonina ma yaqaanaan kaamka badarka lagu karin jiray dad badanaa maxay ahayd wiilala waxaa ka ahay meesha madax ka ahay wiilashu ay ogaayeen waxaan samayn jiray inaan dhar kaaki aan soo qaato oo aan soo daboolo in shareer soo xirto aan gacmahan xijaabka saas ka hoos iska geliyo aan safka dhinac ka gali jiray safkaan dhinac ka gali jirani oo kaamka laga qaadanayo subax aliseed waxaa laga karin jiray digir saa u xasuusto kadibna waxaa la karin jiray maxaa la bariis okay safka bariiska markaa u galo maalintii igu xumeed aniga aan ilmeeyey waxay ahayd gabadheyda curudda ah safkii antii ugu dheeraaday ee gurigeyga koob shaah ee cabto ya koob shaah ee cabto ma oolin dugsigee tagtay way ka imaaday iyadoo baahan gurigee waxay cuntay ka waaysi dugsigeeday ku laabatay ana cidna uma sheegin dadka dad igu dhow xataa ana diriskeyga iyo dad waxay ma u sheegin ma dhihin xaaladaas ay ugu waan is adkeeyey waxaan sameeyey inaan baxay gabadhii marka adig 4 saac iyo bar camal 5 saac ku dhawaadaan imaaday aan keenay kaamka safkii ay igu dheeraaday ilaa saf hadduu kugu dheeraado dad kugu dambeeyaa noqonay kadib gabadhiyaa dugsiga ka doonay waa keenay gabadheydii markaa keenay iyadoo baahanaa dugsiga ka soo waday
macalinka waxaa ugu sheekeeyey inaa furihii aan maxay aheedi meel aan isku ogeyn maahan meel kale aan dhigay way imaaday wixii ka waay soomahan ani waxaan dhaha marka way waaysi furihii saasaa darteeda anaana macalin oo qaladka iskale gabadhii waa soo watay sideedan quraacan ku sii waa ku celiyay waxaa dhacday haddana anigoo umal ah oo dhalay maanta camalaa dhalay wiil diriskeyga ah haddana waa rabaa inta inaan ka magaciisa ka sheega cabdi sheekh xasan jimcaala la dhahaa kheyr allaha siiya markaa dhalay cabdi sheekh xasan jimcaale aa ii yimaaday ayadoo ku shilin baraf leegu doono oo gurigayga oosan oolin ba waxaa ii yimid walaalkay cabdi sheekh xasan jimcaale raalli noqdo xoogaa mararka qaar markaan ka sheekeeyo xaaladaas adag yani waa iska ilimeynaya maanahan inaa idinka aan micnaha aan xanuun idiga dhigaayo laakiin waxaan idin sheegaya waxaan jeclaystay dadka asxaabteyda maanta maalin kasta su-aasha igu wareeriyey ha ka ahaata dad inay jabkeyga ku faraxsan ha ka ahaata dad aniga yani ila damqanayo waxaan rabaa xaaladda aan soo maray inaan ugu sheekeeyo inta sana aan ugu soo noqlaay walaalkay cabdi sheekh xasan jimcaala ii yimaaday cabdi sheekh xasan waa baxay horta uu ii yimaaday wuxuu u tagay wiil khaliif la dhahaayo tiktok khaliif hadduu lifekeyga ku jiro wuu ogyahay asa xaaladeeda yacni waxaad igu qasabteen inaan xaaladeeda bartaan ka sheego waxaad igu qasabteen xaaladeeda inaan lifeka ka sheego anigoo ilmeynaya waa soo galay laakiin faahfaahin ma bixinin hadda waxaan rabaa faahfaahin inaa idiga siiyo marka waxaan jeclahay dad badan inay iga qancaan okay waxaa aan soo maray marka wiilkii abu cabdi ahaa cabdi sheekh xasan jimcaal wuu baxay wuxuu u tagay khaliif tiktor khaliif marka u tagay wuxuu dhahay gabadhan aan garab siino oo walaashan ah maanta wax hor socda aysan jirin guriga kaligeed ku nool xaaladaas adag ku jirto cabdi sheekh xasan markuu sidaa dhahay wiilashii waa iskaashadeen hadday iskaashadeen يعني دادا لو تغاي دادكي markii loo tagay lama dhihin farxiya xaaladaas ku jirto farxiya xaaladaas ku jirto cid ahdi ma lahan gabareedu curuda iga xanuunsatay oo qalal igaga dhacay hadda alxamdulillah waa iga bogsootay qalal afka xunba ka keenaysay jareynaysa igaga dhacday yani man awoodin inaan dhakhtar geeyo ma awoodin inaan quraan aan saaro marka wiil walaal ahaan u cararay 5 biri anoo dhalan oo dhiigayga socdo xanuunsan oo dhacdhacaayo oo wiifaayo ba waxaa aaday wiil walaalkay ahaan usoo dan sheegtay inay gabadheedii ay xanuunsan tahay 5 biri aa dhalnay markaa baxay anigoona wiifay tabardare ihayso xaalad adag isaga jiro waxaana idin sheegay maalintaa dhalay gurigayga ku shilin maxay ta baraf aan ku soo gato wadnaha itagay ma oolin gabadha umalsada cunuga iga soo qabatay baa waxaa sameysay inay baxday maxay aheeday حتى dhiigayga wax lagu dhaqay iyo ma oolin guriga waxay aad gurigeeda waxay ka keentay ooma iyo saabuun iyo waxyaalihii looga dhaqay okay waxaan rabaa marka noloshaas markaasaas ahay waxaa dhacday wiilashii ay soo gurmaday maasha Allah umasha waxaan ugu baxay si wanaagsan gaari buuxo oo raashin ay nooca lacag 2 milyan ah saliim macsare caag buuxo adduun oo dhan waa la soo adeegay alxamdulillah nolosha waxaan ugu baxay siin oo maxay ahayd raaxa ah way dhamaatay aniga marka umasha ka baxay anigoo يعني فرحيدي aan ahayn oo maanta shalay loo soo qaaraaminay xaalad adag ku jirto anoo ahayn ba aniga magaalada waxaan ka ahay shacabka heer joohar waxaan ka ahay bilacda gabadha heer joohar geelo jaa ku haysto oo soo baxdo oo jalaqsan labisan iska sumaad wax xaalad aan ku suganahayna ilaahay subhanahu wa ta'ala baaw cidna uma sheegin maanta waa iska baxa dukaankaas taga waxaan arkay dukaankaas anoo badar ka soo qaatay deentiis ii qoran tahay ka leexday mid kale ka soo qaatay deentiis ii qoran tahay ka leexday mid kale ka soo qaatay deentiis ii qoran tahay oo aan magaalada aanan xaq kale aan ka cabsanayo aan qofna hormari karin deen darteeda yani bari halee xirto wax kasta ha dhacaano laakiin ilmahayga inay baahdaan hal habeen baahi ku jiiftaan aan diidanay aan u dhabar adeegay ma rabeen in dad aan xaaladeedana aan la wadaagan ma jecleen maadaama hadaan haysan aan walaal ii dhow aabba dhalay adeerkee dhow adeer labaad saddexaad afraad hadaan haysanin oo aabbana ii joogin oo dadka aan dhibkeyga u sheeganaynin qof
maxaa la dhahaa hal wiilaa garabkayga taagnaay halkaas wiilna hal wiil hal waxaa la yidhi hal far weji fool ma dhaqdo okay saas sidaa u ahaay xaaladeyda waxaa dhacday inaan malaamaley noqdo jowhar inta badan way i yaqaanaan anigoo yar waxa ku biiray ururka haweenka waxaan ahaa dadka malaamaleyda laamiyada xaaqaaya waxaan xasuustaa garaash maxay tahay gaal shiro xilliga maxamed dheere ahaa jirta dad badan ay yaqaano oo heer jowhar ah gaal shiro dadka nadiifiyey oo nal ka dhigi aniga ka mid ah gacanteeda waxaa ku soo jiidaya bakti dameero bakti aan gacanteeda ku soo jiidaya anoo saas u shaqeynaya waxaa imaanaya hay-adahaas markaas cabdijiino marka ku heystay hay-adahaas waxaa la dhahaa dadka malaamaleyda ah xaq u leha la siinaa maalinta anaga malaamaley anagoo iska waxaa heli jirnay dadka markii lasoo dhaweynayo kale aan lacaga heli jirnay boqol kuna la siin jiray markii wafd imaanayo saas oo kalenta cabdijiino wuxuu dhahay dadka oo xaaqaaya malaamaleyda xaq u leh hay-adahan dadka la siinaayo lacagaha loo soo tuuraayo kaararka aniga waxaa dhacday inaan saf galay oo safkii aan galay leega soo saaray lee dhahay adiga maxay ahayd kugu dhacay dadka oo fariimaha soo qoraa gadaala ugu jawaabi doonaa waxaa lee dhahay adiga maxaa kugu dhacay dadkan ka dhexbaxaa lee dhahay dadkan ka dhexbax saa u taalid oo ujeedaa adima mabaahiya ku hayso aniga waxaan ahay indhabiyo waxaan ahay qof aad u calool jilcan ma cidi kari ilinteeda aniga maasha allah aada umahadsan tahay horta waxaan wax yar hadalka waa idiin sii wadayaa xaaladihii adaga aan galay waa idiin sheegayaa maasha allah wiilkan wuxuu dhahay aabayaashood way joogaan aabihii dhalay ilmaha way joogaan dal iyo dibidba way joogaan laakiin markay dhasheen oo dharagta lagu qabtay ilaa iyo hadda ana aabbi iyo hooyo u ah ma fahantay ciyaalkayga ana aabbo iyo hooyo ah markay dhasheen dharabta lagu qabtay waa tosaaku idiin sheegaya anigoo umal ah saasaa aniga rafaadkayga dad iisoo qaaraaminaya anoo umal ah ee lugay iskor saaran yihiin ma waxaad sugaysaa marka cunug socdo oo la soo koriyey in wax lagugu siiyaa maya adigoo umal ah qofka ku deeriyey oo aan maxay ahaydee garabkaaga ma soo istaagayo nimanka soomaalidana waxay yaqaanaan cunuga ii dhigmase hayso naaga dhiga way jiraan laakiin aniga ma dhigaayo ani ilmahayga ii dhigmase hayso ma tahay anigaa haysanaayo anaa haysanaayo kun maku siinayo okay kaas saasa ugu baxay qoraalka koro mar kale waxayna wiilkan wuxuu dhahay nuur xaaji axmed wuxuu dhahay adiga hadda ugu dambeyn ma waxaad u baahan tahay nin aan ku caawino oo daruufaha dhaqaale ay ku haysato oo waxaa u baahan tahay garab istaag mise wax haysataa wax warka noo kala cadeey warkane xoog iska soo gaabi okay waayahay waa mahadsan tahay aada oo mahadsan tahay walaalkay ha si fiican maxaa iga oysiiyey ani hooyo maxaa iga oysiiyey dayib hadda waayahay orod hooyo maxaa iga oysiiyey hadda anigu warka dhan waa soo gaabinaa sax waaye يعني dadka tusaale waxa uu inta ka soo hadlay يعني walaalkay wuxuu ilaalinayaa madax xanuunkeyga uu ogyahay xaaladeeda la socdaa warku soo gaabiyo dhahay maxay ahayd xaaladii inta hore waa ka soo sheekay mula baahna in aan idisi wado xaaladda xanuunka aan soo maray ilaa hadda aan ku jiro ugu dambeyn waxa iga oysiyo caawinaada u baahanahay aniga garaba u baahanahay waxa u baahanahay in la garab istaaga xaqiiqda hadda idin sheego waa taa garab istaaga u baahanahay waa farxiyadii dadkii dhihi doono farxiyo cabdi raadiyo maanta live inta soo gashay يعني dhahday garaba u baahanahay la caawiyo dadka ku farxi doona ha ku farxaano laakiin aniga maanta warkayga waa idin su'aalaha dadka fadlan waxa leeyahay marka
adigoo su-aal i weydiinayni messengerkayga inaad soo gashid waxba ani ma raba inaan qof maalin kastaba isaqaqad kastaba aan ka sheekeeyo ee indhahayga madoobaadaan ilin darteeda wejigayga barara ma rabo fadlan waxaan idin leeyahay haddaad lifekayga daawatid su-aal ha i weydiinin waa ku baryayaa su-aal damba ha i weydiinin aadaan idin salaamayaa maantan waxay iga ilmeysiiyey xaaladda adag aan ku jiro maanta been idin sheegaayo waa dareemi kartaa hooyo 5 qof mas-uulka anaa ku lexe xaaladeeda aaday u adag tahay qof kasta oo maxay Soomaali ah ilaa iyo dawladda Soomaaliya oo ugu sareeyo maxamed cabdillah farmaajo xasan cali khayre duqa magaalada Umar Finish dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa ku jira xaalad adag oo aan meesha raban mari karin xaaladeedana adag tahay fadlan qofkii igu farxi doona ha igu farxasay u taala laakiin waxa idin leeyahay fadlan halayga joojiyo su'aalaha badan aada idin salaamaya waa farxii cabdi muday waa farxii cabdi raadiyo taqaaneen waa gabadhii Soomaaliyeed maalin kasta ku labisneed calanka Soomaaliya ku faraxsaneed ku labisneed calanka Turkiga oo taageersaneed u taageero aniga maalin kasta Soomaalinimo muwaadinimo iyo waxa iga ahayd maxaa lahaa dad jecel waxa ay qaaday qiiro maalin kasta waa gabadhiini oo ku labisneed calanka Soomaaliya iyo Turkiga maanta xaalad adag ku jira waa ka xaalad adag caafimaadkeygana ma fiicno waa ka saabis